in qofka backgroundkiisa CV-ga lagaga ciyaaro qofka la fadeexay la ceebeeyo lagu sameeyo galmo isku jinsi ah dad loo tababaray caalamka ma jirto wadan ciidan intii loo qaaday dadka la soo tababaray koros noocaas qayb kamid ah la siiyo. dhacdo yaab leh ayaa ku jirtay waraysi uu bixiyay Cabdulaahi Cismaan oo kamid ahaa askartii tababarka ugu maqnayd wadanka Eritrea iyadoo uu waraysigan ku sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo taliyihiisii Nisa Fahad Yaasiin ay samaysteen askar gaar ah oo loo tababaray inay kufsi u geystaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland oo Farmaajo mucaarad ku ahaa xilli fogna ka soo horjeeday. waraysigan uu qaaday wariye ayaan la xuseen oo aan wali wada bixin ayaa waxaa ka buuxa dhacdooyin yaab leh oo laga shaqaynayay 5 sano ee uu Farmaajo madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya waxaana ay ahayd dhacdada ugu yaabka badan in la abuuray koox dhalinyaro ah oo tiradooda lagu sheegay 20 askari kuwaas oo loo tababaray inay muuqaal ka duubaan kufsina u geystaan qaar ka mid ah madaxda maamulada Farmaajo ka soo horjeeda ee diidan damaca Farmaajo. in yar ila daawo muuqaalka Cabdulaahi Cismaan uu dhacdadan uga waramay in qofka backgroundkiisa CV-ga lagaga ciyaaro qofka la fadeexay la ceebeeyo lagu sameeyo galmo isku jinsi ah dad loo tababaray caalamka ma jirto wadan ciidan intii loo qaaday dadka la soo tababaray koros noocaas qayb kamid ah la siiyo 20 qof baa nidaamka la baray oo lagu tarbiyay waa koow ajendayaasha koowaad deganaa waxa shirarka maaragtay madaxda la isugu yeerayo ka dhacayo tusaale gobolka Muqdisho Banaadir madaxda in lagu sameeyo galmo isku jinsiga ah si lagu sameeyo waa ayaga loo tagaya waa la xoogaya wala qabay staafka banaanka uga harayaan mugta xafiisku galaya dadkan waa loo diyaarinaya gadaal bay ku jiraan marka waa la marti qaadaya clip baa laga duubaya. haddaba maxaa lagu rumaysan karaa waraysigan oo ay ku jirto in la dilo madax dalka soo martay sidoo kalena kuwa maamul goboleed la dulaysto dhinaca kalena la burburiyo dhowr dekedood si loo wiiqo ilaha dhaqaalaha maamulada Jubbaland Puntland iyo Somaliland oo xilli hore sheegtay inay Soomaaliya ka gooday. haddaba marka la eego habdhaqankii Farmaajo iyo qaabkii loo qaaday ciidankii Eritrea iyo sida waaridkood looga qariyay iyo weeraradii siyaasadeed ee uu Farmaajo ku qaaday madaxdii mucaaradka waxaa khasab kugu ah inaad aaminto qaar badan oo ka mid ah sheekadan. sidoo kale ciidankii tababarka ugu maqnaa Eritrea oo muddo dheer warkooda la la'aa ayay dowladii Farmaajo diiday inay ka hadasho. sidoo kale ciidankan oo dalka dib loogu soo celiyay markii uu Xasan Sheekh Maxamuud noqday madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaar badan oo ka mid ah isaga tageen ciidanka taasoo keentay inay aadaan guryahooda waxaana halkaas laga akhristay inay ahaayeen rag aan dalka u maqnayn laakiinse ku maqnaa fikir kale iyo aragti loogu adeegayo dano gaar ah. waxaana uu waraysigan uu baxshay Cabdulaahi Cismaan oo ka mid ahaa ciidankii ku maqnaa Eritrea laga dhex akhristay khatar badan oo dalka ku soo wajahnayd waxaana khatartaas looga badbaaday doorashadii Soomaaliya oo lagu doortay madaxweyne kale oo aan ahayn kii hindisay mashruucan. sidoo kale inay dhacdo doorashada Soomaaliya waxaa laga soo maray dhib badan iyadoo la xasuusto khilaafkii adkaa ee dhex maray Farmaajo iyo Rooble kaasoo ku sigtay inuu isku rogo gacan ka hadal ciidan iyadoo ay Farmaajo iyo Rooble isku qabsadeen arrimaha doorashada Soomaaliya markaas oo uu dhex maray khilaaf siyaasadeed oo dalka khalkhal geliyay kaasoo aakhirkii keenay in Farmaajo iyo kooxdiisa xukunka looga adkaado iyadoo uu xafiiska mar kale dib ugu soo laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale waraysigan oo aan wali wada bixin ayaan markuu wada baxo ku samayn doonaa qiimayn iyo falanqayn. intaas ayaana ku soo koobaynaa warbixintan.